السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaantiin salaam saaxiibada sharafta leh meel kasta naga daawanaysan. Filimkaynu maanta soo xigeenna waa filim Soomaaliyeed waxaanaynu kaga hadli doonaa khiyaanolihii weynaa balse isagu dhawarka ka jabay ugu dambeyntii. Haddaba saaxiibayaanteennan filimkeena ugu gudagelin waxaan idinka codsan lahaa bal inaad muuqaalka like noo saartaan sidoo kale page-keena noo soo follow garaysan haddii aad tahay tiimka YouTube-kana subscribe-taan noo saartaan. Haddaba saaxiibayaal haddaynu filimka ugu gudagalno ninkan waxaa lagu magacaabaa Maxamed gabadhanna waa gabadhiisii waxaa lagu magacaabaa Sumaya. Haddaba maalmaha ka mid ah waxaa albaabka ka soo gelaya Maxamed iyadoo Sumaya TV-ga iska daawanaysa. kadib marka uu soo galo waxay si weydaarsanayaan hadallo kadibna waxay ku odhanaysaa intaan halkeed ku maqnay waxaana u qoranayaa shaqadayaan maanta ku raagay oo aan ku maqnaa kadib waxay ku odhanaysaa halkaa doonta baad ku maqnaatidee anigu waan seexanaya waan daalanahay waa inaad hadhow toole albaabka ka furtaa marka ay timaado walaashay kadib waxaa ku odhanaya waa okay anaa ka furaya intee kadib way ka tegaysaa haddaba jabka taagan ayaa ah markay ka tagtay iyo moodayay inay seexatay may seexan balse ninkan Maxamed agtiisa waxaa taalla kaamiradaasi oo duubaysa codkiisa iyo muuqaalkiisaba kadib iyadana waxay kala socotaa qolkeeda kadib Maxamed waxa uu la soo baxayaa mobil waxaana uu kula hadlayaa gabadh kale oo ku hoos waday isla markaasina ay ku ballansanayeen in ay hadda reeriyo galeeraan kadib waxay ku odhanaysaa halkeed aaday yani fadhigii alaabtii aynu soo gadinay inaad ii raacdaan rabay kadib waxaa ku odhanaya waa okay adigu inoo soo gad anigu hadda meel ayaan ku yara maqanahay intaa kadib waxay weydiinaysaa ku odhanaysaa haddaba waxaan ku yara weydiinayaa waxyaabo ka mid a waxyaabaad ku kala tagteen gabadhaadii hore gabadhana hadda la joogo way may kala tegin laakiin isagu wuxuu sheegay inay kala tageen kadib wuxuu ku odhanayaa iga dahaysoo xasuusinin ma rabo inaan dib u soo xasuusto waxyaabihii hore balse way ku yara adkeynaysaa waxay doonaysaa inay waxyaabo fara badan ka ogaato kadibna waxa uu sheegay inay ahayd qof qaylo badan dhib badan markaas inuu ku qabay dhibaato fara badan kadibna waxay ku odhanaysaa okay intaasoo dhan anaad u ilaabaysa okay buu ku odhanayaa kadibna waa macal salaameynay balse dhibaatada taaganaya ah in ay markiiba Sumaya kasoo bootay qolkii isla markaasina ay ku bilowday dagaal Maxamed aad ayuu u yaabayaa wax odhanayaa intay kaa maqlaysay intay kugu arkaysay balse maxay kugu haysataa kadib ugu dambeyntii iyo dagaal badan kadib waxay tusaysaa kaamirada oo taalla agtiisa waxaana ku odhanaysaa halka ayaan wax walba kala socday ee dhaqso waa inaad hadda gurigay dhaaftaa meeshuna America haddaad gurigayga dhaaf weydo waxaan ku wacaya booliiska hadda sidaas ayaan Maxamed gurigayga ka tegayaa isla markaasina uu albaabka ka baxaya haddaynu intaa ku yaraakino sheekada Maxamed ninkan odagay aad arkaysaa waxaa la yidhaahdaa Xirsi halka midkan kale uu yahay inankiisa oo lagu magacaabo Asad haddaba Asad maalmahaas ayaa isaguna waxa uu rabay inuu aqal galo kadib aabihii marka uu yimaado waxa uu sheegayaa in uu arrintii u soo dhameeyay isla markaasina ay u dhiman tahay meherkii oo kaliya hata Asad arrintaas aad iyo aad ayuu ku farxayaa waxaana ku odhanayaa hambaliya aabba aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay kadib aabihii waxa uu sheegayaa in uu aad uga warwarsan yahay shaqa la'aanta haysa Asad kadib waxa ku odhanaya waxaan jeclaan lahaa adigoo haysta shahaado PhD ah iyo shaqo aad u fiican kadib Asad wuxuu ku odhanayaa may abba waxaa ka warwarin ayada ayaa wax walba haysa lacagtii haysa gurigii iyo alaabtii inoo sii diyaarisay kadib aabihii waxa ku odhanayaa adigu markaa maynanta ayaad isku halaynaysaa waxaana ku odhanayaa haa iyada wax walba haysa maadaama iyadu jeceshayn iyada ayaa wax kasta iga bixinaysa kadib aabihii waxa ku odhanayaa waxaas arrin maaha waa inaad shaqaysataa nin weyn ayaa tahay kadib waxa ku odhanayaa abba haddaan shaqaalo waan shaqaysanaya intaa kadib waxaynu arkaynaa Maxamed iyo gabadhii lagu magacaabay ayaan ahna midii ay Sumaya isku soo dagaaleen kadib markii iyada la hadlayay ayaa waxaynu arkaynaa inay halkan wada socdaan isla markaasina ay iibinayaan fadhiga haddaba lacagta fadhiga lagu iibinayo isla markaasina guriga iyo waxyaabahani lagu sii baxlaynayo dhammaanba waxa iskale Maxamed kadibna waxa uu dhiibayaa kaadhka lacagta ugu jirtay waxaana uu ku odhanayaa wax kasta ood kala bixi karta intaa kadib ninkii meesha mulkiilaha ka ahaa ayaa waxay ku odhanayaan waxaan doonaynaa fadhigan inaanu berri qaadano kadib waxa ku odhanayaa berri inaad qaadataan macquul maaha waa inaad dhowr maalmood sugtaan kadib waxa ku odhanayaan maya berri ayaan rabnaa inaan qaadano sidee aan xal ugu heli karnaa kadib waxa ku odhanayaa ayaa saad xal ugu heli kartaan waxa weeye inaad lacagta soo kordhisaan isla markaasina aad bixisaan lacag dheeraada kadib waxa ku odhanaya waxba lacag ka warwarin isla markaasina jeebka Maxamed ay ku jirta intaa kadib fadhigii dhammaan alaabtii guriga ay gateen waxaanay geysteen gurigii intaa kadib waxaynu arkaynaa Sumaya iyo walaalkeed oo meel wada fadhiya kadib Sumaya walaalkeed ku odhanaysaa waxaan rabaa aad ninkan warqadaydii ka soo qaado maadaama aad tahay walaalka kadibna waxaa ku odhanayaa miyadan eegay carruurta iyo waxa weeye ubadka idin dhahayaad kadib waxaa ku odhanaysaa markastoo ku dhaha warqaday ka soo qaado arrintaa idinku soo celinaysa intaa iska dhaaf balse waxaan rabaa inaad warqaday ka soo qaado intaa kadib waxaa ku odhanayaa balse waan isaga marka hore u tagaa oon soo weydiiyaa inuu arrintaasi raalli ka yahay intaa kadib Xirsi iyo Maxamed oo ah laba qof oo saaxiib ah ayaa waxay ku kulmayaan isla magaalada kadib waxa uu Xirsi u sheegayaa Maxamed inuu inankiisa Asad maalin dhow u mehersanayo gabadh kadibna uu Maxamed ka soo qayb gala meherka Maxamed laftiisa ayaa ku odhanaya aniga laftaydu arrintaasi ayaa aan hawsheeda ku jira waa si wanaagsan waana ka soo qayb galaya kadib odayga Xirsi waxa uu ku odhanayaa waa si wanaagsan adigana maalintaada waanu kula qaban doonaa adiguna waanaad beri doonan oo timaadaa isla markaasina aad nagala qayb gashaa arrintaasi Maxamed waxa ku odhanaya waa si wanaagsan insha Allah waynoo beri sidaas ayaynu ku kala tegayaan kadib maalintii xigtay waxaan arkaynaa iyadoo loo fadhiyo meherkii Asad isla markaasina halkaas waxaa fadhiya odayga Xirsi inankiisa Asad iyo Maxamed halka dhinaca kale ay fadhiyaan eheladii inanta kadib markii hadalada la isweydaarsaday waxa ay qoyskii inanku odhanayaan waxaan ridi ka rabnaa inanta magaceedu sida ay sidaas yahay balse arrinta aadka u la yaabka badan ee Maxamed ku noqotay shoog ayaa waxay
waxay ahayd gabadha laga doonayo waxay ahayd isla ayaan isla markaasina saddexda magac waxay ka wadatay magaceeda. Kadib maxamed indhuu taagtaagaya aad baana u yaabaya balse wuu iska aamusay waxay sodhanayaa waa intaasay dhacdaa inay isku magac yihiin. Intaa kadib dhammaantood bay faraxsan yihiin laabta ayaanay suuda gelinayaan isla markaasina sidaasi ayay ku kala tagayaan. Haddaba saaxiibayaal waxaanu halkaa ku hakin doonaa xalqada koowaad ee filimka. Fadlan la soco xalqada labaad ee filimka. Dhammaantiina waa mahadsantihiin.